magaaladan dhuusamareeb saaka aan joogno qof Soomaaliya oo aan deganeyn qabiil gooni u degan ma jiro qabiil kasta Soomaaliya degan marka in loo doorto inay noqoto magaalo madax waa hore u dhaxday haddana inay magaalo madaxeedu noqoto ay noqoto meesha lagu soo dirinayo inay noqoto hooyada Soomaaliyeed hooyada maxaa la yiraahdaa maamul goboleeda in noqoto rajayna ballanqaadkaas ay noo ballanqaadeen dadka degan iyo xukuumaddii meeshaan haysay haddii ahleed madaxweyne Axmed Geelle Xaaf haddii ahleed Sheekh Shaakir madax xukuumadda haddii ahleed dhammaan dadka reer dhuusamareeb roole iyo yaraan intaba oo ballan fuliyey inay soo dhaweeyaan dowlad goboleed mudug xoog la dhiso una tanasulay wax badan lasku hayn jiray waxaa la ogaay in la leeyahay galmudug wax ka socon maayaan dhuusamareeb wax ka socon maayaan ahlu sunna wax ka socon maayaan maanta waxaanu caddaynaynaa ahlu sunna inay tahay dad Soomaaliyeed oo reer galmuduga qawaarij la dagaalantay maantana u diyaara inay dad dowlad Soomaaliyeed oo dowlad goboleed galmudug ay dhisto dowlad Soomaaliyeed ay ayado waxaan rabnaa inay galmudug noqoto maamada dowladda federaalka ah waxaanu mahad celinaynaa mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha aniga haddaan xildhibaanadii waxaan gacanay nagu siiyeen meeshii nagala soo doortay inaan ka dagaalanno inaan maxaa la yiraahdaa juhdi badan ku bixinno inaan xooggeena xoolaheena u horno aad baan ugu mahad celinaynaa ayagana